السلام عليكم. iska warrama waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin habeen maalin galab casar duhur xilli kasta ku tahay wanaagsan kuna soo dhawow barnaamijka aad ciwaankiisa kor ku soo aragteen waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxay ku dooratay inay soo bandhigto 8 daraasadood barnaamijka gudihiisa ayaad ku ogaan doontaa waxaan ogahay inaad faa'iido badan ka heli doontid mar labaad soo dhawow daraasadda koobaad waxayna leedahay cabirka farxadda ee rag iyo dumarka cilmi baaris cusub oo laga sameeyay xog ururin laga soo ururiyay meelo badan oo dunida ka tirsan ayaa lagu ogaaday in raggu farxad badan yihiin markay lacag haystaan halka dumarkuna ay farxad badan yihiin ama ay farxad ku dareemaan markay asxaabtooda waqtiga la qaadanayaan xiriirka ay carruurta la leeyihiin oo wanaagsan iyo inuu wanaagsanaado xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo dadka ay shaqo wadaagta yihiin baaritaankan oo lagu sameeyay 18153 qof oo ka kala tirsan 51 wadan oo adduunka ah oo ay samaysay shirkad lagu magacaabo Nelson sidoo kale waxa daraasadda lagu ogaaday in waqti xaadirkan ay sii badanayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee dunida iyo in dad badan ay og yihiin inaan farxadda lagu kasban karin hanti ama maal sida xaqiiqooyin badan sheegaan aniga qudheyduna aan aaminsanahay dadka lacagta haysta waa kuwa ugu murugta iyo walwalka badan adduunka alla bahasho hawl badana ayna ku sii soconno daraasadda labaadiyaduna waxay sheegaysaa haweenka oo muddo aad u yar sirta hayn kara daraasaddanka cilmiga bulshada ah oo Mareykanka lagu sameeyay ayaa muujisay in haweenku ay hayn karaan sirta wax ka yar 38 saacadood kaliya badankooduna ay sirta u gudbiyaan dad aanay khuseyn isla markaana aan danaynayn Dr. Margaret Powell oo ku takhasusay cilmiga bulshada kana howlgala jaamacadda Michigan ee dalka Mareykanka ayaa yiri haweeneydu waxay sirta ilaalin kartaa muddo 38 saacadood ugu badnaan iyadoo daraasadda lagu sameeyay ilaa 500 oo haweena oo u dhashay wadanka Masar da'dooduna ay u dhaxayso 18 ilaa 60 sano daraasaddu waxay caddaysay in haweenku sirta u gudbiyaan cid aan danaynayn oo aan haba yaraatee wax xiriir la lahayn mowduuca ay sirtu ku saabsan tahay iyadoo marka 3 meelood loo qaybiyo 2 meelood oo kamid ah haweenkaasi ay dareemaan inay dambi galeen kadib markay sirta bixiyeen daraasadda saddexaad farqiga u dhaxeeya ragga iyo dumarka ee dhinaca abuurka cilmi baarisyo badan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday farqiga u dhaxeeya ragga iyo dumarka ee dhinaca abuurka waxaana la ogaaday in maskaxda raggu ay ka culus tahay maskaxda dumarka laakiin culayska ay maskaxda raggu ka culus tahay ta dumarka ma aha micnaheedu in raggu ka maskax badan yihiin dumarka gabadhu waxay ninka kaga awood badan tahay inay fasirto akhrido wax ka fahanto muuqaalka iyo xarakaadka indhaha iyo guud ahaan wajiga qofka sidoo kale ragga ay dumarku kaga awood badan yihiin inay dusha ka fahmaan inta badan dareenada qofka gudihiisa sida jacaylka nacaybka khajilaada iyo baqdinta dumarku waxay ragga kaga fiican yihiin barashada iyo ku takhasusida maadooyinka sayniska iyo waliba barashada luqadaha halka raggu kaga fiican yihiin maadada xisaabta gabadhu waxay kartaa inay si fudud uga cudur daarato ama raaligelin ka bixiso gafay qofka gashay markay raaligelinta bixinayso waxay iska ilaalisaa kibirkiisa isla weynida halka ninku isagoo inta badan raaligelin bixinaya haddana aanu ka tagin kibirka iyo isla weynida waxa kale oo intaa dheer raggu ma jecla ka cudur daarashada gafka uu galo daraasaddan ugu xiisaha badan li waxa weeye dumarka jecel muusigu waxay ka badan yihiin ragga jecel muusiga taamicnaheedu waxa weeyaan dumarku way ka jecel yihiin ragga muusiga iyo heesaha gabadhu waxay hordada habeenkii ka baraarugtaa in ka badan inta uu ninku ka baraarugo sidoo kale riyooyinka xunxun ayaa ku badan dumarka 48% kamid ah ragga ayaa hooriya halka 22% kamid ah dumarku ay hooriyaan daraasadda afraad hadiyadaha lama filaanka ahi waxay ka farxad badan yihiin kuwa qofka la siiyo isagoo og daraasad dhawaan lagu sameeyay jaamacad ku taala koonfurta Mareykanka oo ay ka qayb qaateen isla markaana lagu wareystay 12450 qof kuwaas oo da'doodu u dhaxaysay 18 ilaa 25 daraasadda waxa ugu badnaa gabdho dhawaanahan guursaday sidoo kale daraasadda waxa lagu soo saaray farqiga u dhaxeeya dumarka raggoodu siiyaan hadiyadaha iyo kuwa aanay siin waxaana la ogaaday in 80% ay ka farxad badan yihiin dumarka raggoodu siiyaan hadiyadaha marka loo eego kuwa la siin hadiyadaha sidoo kale waxa daraasadda lagu ogaaday inay ka sii farxad badan yihiin marka hadiyada loogu keeno sida lama filaanka ah intaana qodobkan ka bixin waxa hubaala isla markaana ragga kula talinaya gaar ahaan kuwooda xaasaska leh ee mawduuceena caawa daawanaya markaad habeenkii aqalkiina ku socotaan idinkoo faramaran oo xaaskiina wax yar oo ay ku farxdaan u sidin ha tagina sidoo kale iyada muhiim ma aha qiimaheeda ama qadarka lacageeda ay ku fadhido iyada waxa muhiim u ah
waxaad u keentay xataa xabad jukuleedana ha ahaatee. waxaan rajaynaynaa qodobkaas la fahnay. qodobka shanaad, nooca dhiigga ragga ee ugu soo jiidashada badan dumarka. daraasad ay sameeyeen saynisyahano Jarmal ah oo ay ka qayb galeen 3,000 oo mutadawiciin rag ah ayaa tijaabooyin la marsiiyey si ay u ogaadaan nooca dhiigga ragga ee ugu soo jiidashada badan dumarka. baaritaano kala duwan oo dadka la marsiiyey waxaa lagu ogaaday nooca dhiigga ee oodu inuu yahay kan ugu soo jiidashada badan leh dumarka. caadi ahaanna qofka noocaas dhiiggiisu yahay hal lamaane wax ka badan ayuu leeyahay. haddii aynu eegno ragga leh nooca dhiigga eedu aad uguma firfircoona dhanka dumarka. waa dad isxakamayn badan, xidhiidhka ay samaynayaanna aan si sahlan ku jarin. marka loo eego ragga leh nooca dhiigga B, daraasaddu waxay sheegtay in dareenkoodu uu furan yahay aadna u xanaano badan yihiin. marka loo eego kooxda afaraad ee dhiigga AB, baaritaanku wuxuu tilmaamay inay yihiin dad aan jeclayn inay wax matalaan oo dadka kale ku daydaan. waa dad dhaqanka aad u tixgeliya. waayahay daraasadda 6aad, da'da bini'aadamku uu ugu farxadda badan yahay. daraasad lagu sameeyey dalka Ingiriiska oo ku saabsan da'da bini'aadamku ugu farxadda badan yahay ayaa shaacisay inay tahay da'da 33 jirka. mareeg laga leeyahay dalka UK oo la yiraahdo Friends Reunited ayaa ogaatay in 70% dadka riiqaadista laga sameeyey ay da'doodu ka sarreyso 40 jirka, iyagoo sheegay inaanay faraxsanayn isla markaana nolol farxad leh ay ugu dambeysay 33 jirkoodii. waxa kale oo ay mareegtu intaa ku dartay in dadka dunida ugu hantida badan shaqaysteen intii ay ku guda jireen da'da 33 jirka. da'da 33 jirku waa xilliga uu qofku ugu awood, maskax iyo caafimaad badan yahay. dareemahana waxa ku lamaanaada rajooyin dhaba. daraasadda 7aad, gabdhaha guurka ka daaha ayaa ka nasiib badan kuwa degdega u guursada. daraasad lagu sameeyey 2 wadan oo kala ah, Ukraine iyo Finland, isla markaana ay sameeyeen saynisyahano kala ah 3 reer Ukraine iyo 3 reer Finland ahi. daraasadda oo ay ku sameeyeen jaamacad ku taala caasimadda Ukraine waxaana ka soo baxday natiijadan oo ah in dumarka ka daaha guurku ay ka nasiib badan yihiin kuwa sida degdega ah u aqalgala, maadaama dumarka guurka ka daaha ay qabtaan shaqooyin muhiim ah sida inay kororsadaan aqoontooda isla markaana ay bartaan xirfado kala duwan. daraasaddu waxay sheegtay in dumarka guurka ka daaha ama ka raaga ay waqti badan ku bixiyaan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen mas'uuliyadda qoysnimo ee sugaysa marka loo eego dumarka dhaqsaha ku guursada oo ay soo food saaraan caqabado aan loo diyaar garoobin, taasoo keenta inuu dhaqso ku burburo guurkoodu, inta badanna aanay ka fiirsan cidda ay nolosha la wadaagayaan. daraasadda 8aad, isla markaana ah daraasadda ugu dambaysa, waxay leedahay waa maxay sababta dumarku ay caadifiinta u yihiin ragguna ay uga fakaraan go'aanada ay qaadanayaan. maadaama uu caawa ereygan daraasadi oo hadalkayga ku badnaa, iska dulqaata waayo mawduuca aan ka hadlayo iyuunba ah daraasad. marka haddii caawan ku dhaga barjeeyay daraasad, iska dulqaata aynu ku socono. daraasad ay sameeyeen cilmi baadhiyaal u dhashay waddanka Norway ayaa lagu sheegay inay jirto waxyaabo keena inay dumarku noqdaan caadifiyiin ku degdega waxyaabo badan halka raggu waqti siiyo go'aanada ay qaadanayaan. khubarada daraasadda sameynaya ayaa sheegay inuu jiro dheecaan loo yaqaano testosterone kaasoo dhiigga ku jira kuna kala badan ragga iyo dumarka. waxay intaas ku dareen inuu aad ugu badan yahay dumarka isagoo kiciyo dhiigga kadibna ay sababto inay gabadhu go'aan iska qaadato. dheecaankan ayay sheegeen cilmi baadhayaasha daraasadda sameeyey inuu ku yar yahay ragga marka loo eego dumarka, iyadoo uu ka tan badan yahay dhiiggu, taasina ay saameyn ku yeelatay kicitaanka dhiigga ninka. sidoo kale waxay sheegeen cilmi baadhayaashani inuu dheecaankani saameyn ku yeesho maskaxda oo ah meelaha go'aanada qaata iyo sidoo kale wax walba oo la samaynayo. saynisyahanadan ayaa tilmaamay in markasta uu dhiigga dumarka ku bato dheecaankani inay gabadhu qaadato go'aan aan laga fakarin, kaasoo uu sababo dheecaankan dhiigga ku jira oo keena inuu gabadha ka kaxeeyo xaaladii caadiga ahayd. cilmi baadhayaasha ayaa rumaysan in kala duwanaanshaha qaabka shaqee maskaxda ragga iyo dumarku uu yahay mid mar walba laba kala duwan ah, iyadoo dumarku ka fikiraan waxyaabaha ay agagaarkooda ka helayaan halka ay ragguna inta badan ka fikiraan waxyaabo laga yaabo inay waqti badan qaadato. gabagabadii waxaan rajaynayaa 8 daraasadood ee kala duwan isla markaana u badnaa kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka inaynu wax badan ka faa'iidi doono isla markaana aad ka fahanteen. nabadgelyo.